Soomaali carabtu waxay dhahdaa man jadda wajadda waman zara'a hasada. Qofkii dadaalna waa gaara ninkii abuurtana waa goosaa. Marka dadaala ninkii dadaal waa goosaa asaasan ku sheegay isla joogeen adduunkan waa la dhimanaa. asluubta uu qofku kula dhaqmo aadanaha kale waxa ay matalaysaa heerka ay gaarsiisan tahay shakhsiyadiisu. halkan waxaa ka muuqata shakhsiyad aysan isla weyni ku jirin oo aad dhulka ugu dhow. Hamza la dood markaan bariis furfur wal nacmiya maana. kabtan maxamed sheekh waa taliyaha ciidamada nisa ee marka iyo nawaaxigeeda mar kalena waa gudoomiye ku-xigeenka amniga marka cadeey waxa uu kushiinka u galaa maalin walba ciidamo isaga ka amar qaata. sarkaalkan ayaa aaminsan in darajadu ay tahay wax uu alla bixiyo sidaas daraadeedna uusan jirin wax farqiya oo u dhaxeeya isaga iyo askarigiisa. waxa uu fariin u diray saraakiil ciidan oo uu ku sheegay kuwa isla weynida darajo u haysta isla markaana si xilla ula tacaamulo askarta ay amrayaan arintaas oo uu u arko cawaaqib xun oo aan nabad lagu helayn. askartan hadii aniga aan ku amra ka waran sida saraakiisha qaarkeed in raashinkina ay macnaha ii qaadaan meel ismiiski ii saaraan sariirtina ay ii goglaan sidii naag booyasoo kala. askariga maxaa dheertaa darajadaas ilaaha bixi darajadaas ilaaha ku sii waa ku aaminsan yahay adoo dhalay kala mid tahay hooyadii ku dhashay soo qabad yaadeen waa aadaa waa soo qabtaa aabihii ku dhalay qaladu gala soo qaba waa soo qabana haddii markaas kadib aad damacdo ka waran inaad dulaysato sida saraakiisha qaarkeed oo dhaqamada xun haddii aad damacdo inaad dulaysato tiraahdo orod sariirta soo gogol furahaas aadaan ku ogahay gurigaasna wax iga soo gal kara male horteegi raashinkii wixii diyaari ma naag u dirsatid. taliyaha waxa uu askartiisa ka samaystay kasbasho badan waa uu kariyaa ama waxbuu ka agaasimaa raashinka maalinlaha ah ee xiradan waa la cunaa waa la kaftamaa inta badanna waqtigiisa waxa uu siiyey howlaha horfulinta u leh taliskiisan. wax walba mar walba maxas nugu soo kordhiyaa inaan asiga oo kale aan ku daysano hadda taliyi waay wana leeyahay anaga saaxiibkaan oo kale isku mid yahay har iyo haween waxa asiga dib noo galo adii waxaasi waa mashquulisan mid saasi xataa kuma qabna saaxiibkaan oo kale waay inaan ku dhahno waa qofka bil aadanka in dabciidiisa iska wanaagsanaato dadka uu ku dhex jiro ama ha naqdaan ciidan ha naqdaan ama shacab ha naqdaan in markaas uu la dhaqmi karo dabeecad wanaagsan dadkan uu soo jiidan karo asna intaasoo dhanna waa ka haysanaa maasha Allah wax dhibaato kuma qabno aad iyo aad buu markasta noo caawiyaa garabna noo siiyaa. ciidamada iyo taliyahoodu waxa ay hadda qadab bisil ka qaadi rabaan buufow bacaad oo qiyaastii ilaa 10 kiiloomitir u jirta degmada marka waxaana qadada loo geynayaa ciidamo ku sugan ee tuulada lagu magacaabo buulo dhurow oo 2 kiiloomitir u jirta buufow bacaad oo ah taliska labaad ee ciidanka nisa halkan ugu weyn ciidamadaas difaaca ku jira ayaa qadada loo geyn rabaa. hogaankaagu qiimo yeelan maayo haddii aad tahay qof ka aradan ixtiraamka iyo in si dabacsan oo naxariis loola dhaqmo inta aad hormuudka u tahay. difaaca ka sokow isaga iyo askartiisu waa dad u xirfadaysan tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha waana tarbiyad uu siiyo maalin kasta si shaqada qaranka ka bacdi ay u gutaan waajibaadka kale ee qoysaskooda. sida uu garwaaqsan yahay aadanuhu waxa ay buunbuuniyaan mid ka dhagra waxa ayna xaqiraan midka ciidanka u ah ee u taagan difaacooda. weli inta hub ay dawladda soo rartay maxamed sheekh waa kana hubkaan waa kana maladeen 30 qori BKM oo weliba beel lahayd aan inta culimo iyo shakhsiyaad aan hortagan waxaan ku yiri dalkan in la difaacaas rabaa hubkaana lagu difaaca sidii ay yihiin dawladda loo wareejiyo lagu difaaca. qorigaas BKM ka meequu jooga $15,000 kala siista 30 qori min $15,000 sheeg meel ay yeelan difaac jala yeelan jannada u dhiibni buufo bacaada yeelan bili xool ay dawladda tirsiisay ma laakiin waa garabkeed in lagu caabiyo macal rasaas ku xiran go'aan ka gaarin macal beeshileeda ka soo qaadin qof kasta beeshiisa ha go'aansado in dawladda ay wax noqoto. dhaxanta kulaylka gaajada iyo nafurnimada askariga waxaa intaas u dheer in uusan bilooyin ama sanado arkin qoyskiisa sida caruurtiisa xaaskiisa waalid iyo walaal iyadoo ay u badan tahay inuusan mar dambe arkin oo uu difaaca ku dhinto. maxamuud soofaysane TV-ga Shabeelle marka cadeey. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking.
kadibna guji install si aad ula soo degto abka. haddaba ka isticmaal taleefankaaga adeegyada IBS Bank